بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعنا وناكسن داوديال كسو دواده barnaamijkeeni weydiimaha su'aalaha bisha barakeysan Ramadaan oo maalin kasta idin ka baxa madashan barnaamijkan oo idin soo codsiin jiray Ibrahim Suufi isla markaana maanta ku maqan hawlo gaar ah aanu ka sinayno waxa idin soo codsiin doona anigu Shucayb Maxamed Kaahin hadaba barnaamijka su'aalaha bisha barakeysan Ramadaan oo ay ka qayb qaataan maalinba shirkadaha kala duwan ee shirkadaha kala duwan ee ku yaala magaalada Boorama waxa maanta maalgelinaysa shirkadda isku socodka dadka iyo alaabaha ee Sombedel hadaba su'aashii barnaamijkii ka horeeyay la weydiiyay dadweynaha ku dhaqan baraha bulshada ayaa waxay ahayd waxaad soo sheegtaan waxa ay ku kala duwan yihiin lacagaha la qaaday arooska oo la kala yiraahdo guntin iyo gabaati su'aashaasi oo la weydiiyay dadweynaha baraha bulshada oo siyaabo kala duwan u kala sharaxay ayaa waxay ku kala sharaxeen guntin iyo gabaati siyaabo kala duwan balse su'aashaasi waxa soo gartay murashax Xildhibaan Xamse Kaamil oo kaga soo jawaabay sidii ugu saxsanayd lacagtaasi ayaa la kala yiraahdaa guntinta lacagta ay qaadaan odayaashu isla markaana isweydaarsadaan gabaatiguna waa lacagta ay loo qaybiyo dadka kale ka soo qayb galay dhamaantood la gaarsiiyo arooska saasa la kala yiraahdaa labada lacagood hadaba barnaamijkeeni ayanu galaynaa waxaan u yeerayaa daawadadii ka qayb qaadanaya ugu horeeyay kaalay soo dhawaabtay barnaamijkan wali hore ma uga qayb qaadatay may wali kama qayb qaadan ardayad baad tahay maxaad ka rajaynaysaa inaan badiyo waayahay tirada 5 ilaa 1 lambar qabso 2 su'aasha number 2 ee ku soo baxday waxa ku leedahay maxay kala yihiin daan iyo aroor daan bulshada sharaxa daan iyo aroor maxay kala yihiin wariga walaal ma qalay daan iyo aroor maxay kala yihiin insha Allah waxaan ku rajaynaynaa marka inaad guulaysato soo dhaw wali barnaamijkan oo kale hore ma uga qayb gashay maxaad ka rajaynaysaa guul insha Allah waaye lambarada lambar 5 ilaa oo ka dhax boodaysan lambar 2 ilaa lambar 1 mid qabso lambar 4 ya waxaad ii sheegtaa imise sano ayuu socday dagaalkii Iiraan iyo Iraq isku dayda dagaalkii u dhaxeeyay labada dal imise socday insha Allah waxaan ku rajaynayaa marka dambe garato soo dhaw wandhowa barnaamijkan oo ay maalgelinayso shirkadda isku socodka dadka iyo alaabaha ee Sombedel wali ma hore ma uga qayb gashay nadii hore uga qayb galin maanta maxaad rajaynaysaa wax fiican ma rajaynayaa insha Allah waayahay tirada number 5 ilaa number 2 waad ka dhax boodayso number 4 iyo number 2 mid qabso number 3 waxaad sheegtaa fadliga habeenka Laylatul Qadrigu wuxuu dhigmaa 1 bilood marka bilaha loo bedelo sanad imisa sanad noqonaysa 1 bilood sanad loo bedelo marka sanad loo bedelo 1 bilood marka sanad loo bedelo waxay noqonaysaa 3 sano way insha Allah waxaan ku rajaynayaa marka dambe ku insha Allah abti soo dhaw barnaamijkan wali hore ma uga qayb qaadatay maxaad ka rajaynaysaa waayahay waxa ku soo hadhay number oo kaliya waa number 2 iyo number 5 mid qabso number 2 abti suuradii ugu dambeysay ee Quraanka Kariimka soo degtay maxay nasr baa idaaja aad ma santahay waad guuleysatay waxaan ku siinaynaa abaal marin ay bixinayso shirkadda isku socodka dadka iyo alaabaha ee Sombedel shirkadaasi waxay u baxdaa dalalka Soomaaliland iyo Itoobiya kala baxda hadaad u baahato waad ka qayb galaysaa waxaana ku siinaynaa abaal marin ay bixinayso shirkadaasi aad ma santahay ardayad baa tahay waaye hal su'aal ku soo hadhay su'aalihii kale oo dhan su'aasha number 5 weeyaan waxay ku leedahay waxaad sheegtaa qofkii sameeyay calanka Jamhuuriyadda Soomaaliya qofkii sameeyay magaciisa insha Allah waxaan ku rajaynaynaa inaad marka dambe guulaysato awadaal waxaanu ku guda jirnaa barnaamijkeeni su'aalaha bisha barakeysan ee Ramadaan oo ay maalgelinayso shirkadda isku socodka dadka iyo alaabaha ee Sombedel saaxiib soo dhaw wadhowaysaa barnaamijkan noocan oo kale wali hore ma uga qayb gashay may waayahay su'aal baan ku weydiinayaa waxaad sheegtaa maxay kala yihiin daan iyo aroor waxay kala yihiin daan waa marka reerka loo soo rarayo maxay biyaha loo doonayo
aroorna waa marka reerka loo aroorayo yani meel fog wax looga doonayo yani dhaan waa yani meel yar oo sokay yani ceelal dhowdhow aroorna waa meel fog la tagay su'aashi marka waad yar bal adoo sharaxaya dhaam iyo aroor waxay kala yihiin dhaam waa marka reerka yani loo soo dhaaminayo laakiin meel dhow laga soo dhaaminayo aroorna waa marka yani meel fog kale laga soo dhaaminayo yani insha Allah su'aashaasi waad yar garab dhigtay laakiin waxaan rajaynayaa marka dambe insha Allah maama soo dhawow ما دوا su'aashaad ka faa'iideysanaysaa su'aashaad ka faa'iideysanaysaa su'aashi دان يا عرور su'aashi imika waaya maxay kala yihiin dhaan iyo aroor دان waxaa la yiraahdaa marka reerku dhaansado loo soo dhaaminayo aroorna waa xoolaha marka la arooriyo midna bageela ariga marka aroor u socdo la soo aroor geeyo su'aashaasi sidaas ka duwan bay u dhigan tahay way ka yarduwanta insha Allah taala way ka duwan waayahay waxaad sheegtaa habeenka laylatul qadriga fadligiisu wuxuu u dhigmaa 1000 habeen marka habeenada loo bedelo sanad imise sanad noqonaysa sanad marka sanad loo bedelo bedel su'aashaas bal isku day haddaanad garanayna marka maalinta dambe ka faa'iideysanaysa insha Allah marka dambe ka faa'iideysanaysa soo dhow sax ku dhawran halkaasaad soo durub halkaasaad ka soo booday su'aashii baad tiraana ka faa'iideysanaya bal waayahay habeenka laylatul qadrigu wuxuu u dhigmaa 1000 habeen marka sanad loo bedelay imse noqonaysa 83 sano aad baad umahadsantahay waad ku guulaysatay waxaan ku siinaynaa abaalmarin ay bixinayso shirkadda isku socodka dadkii alaabaha Sanbeder ما سنتي لو صاحب وندوي صح برنامجكن ولي هره ما قيب gashay رمضانتي هره ها وان ka qayb qaatay su'aashi lagu weydiiyay ma xustaa Ramadantii hore wallahi miyuuni la wisaashi way waxaad sheegtaa qofkii sameeyay calanka Soomaaliland magaciisa wallahi ano calanka qofkii heesta calanka ninkii lahaa man garanaya abwaan xas sheekh taad bulshada taaba uga faa'iideyso yahay heesta calanka waxa lahaa abwaan xas sheekh muumin oo ahaa reer awdal calanka cidii sameysana reer awdal bay heeday laakiin magaciisa bay ku dhaxlaaqan wallahi waxaan rajaynaynaa inaad magacana mar kale soo hesho oo aad ka qayb gasho insha Allah ولي برنامج كان هرب قيب ولي قبل قيب قال واي إمسا سنة أيو سعودي دقالكي عراق يا إيران إيران يو يا عراق هذا لا سنة سعودي لا بس markaad ku noqoto ma sanadada aad sheegto inta sano xilligaas uu bilowday xilligaas uu dhamaan adu 3 sano socdo insha Allah waxaan rajaynayaa marka dambe ka faa'iideysato soo dhaw abti waan dhawaay barnaamijkan wali hore ma uga qayb gashay maya maxaad ka rajaynaysaa natiijo fiican waay waxaad sheegtaa ninkii sameeyay calanka jamhuuriyadda Soomaaliland magaciisa Abdulrahmaan Maxamed Xasan Abdulrahmaan ma bal ku ciyaarta mar kale Hussein Abdullahi Daa insha Allah waxaan rajaynayaa marka dambe inaad ka faa'iideysato oo soo garato insha Allah odayaal waxaanu soo gaadhnay guntiga gabagabadii barnaamijka weydiinta su'aalaha bisha barakeysan ee Ramadaan oo ay meel galisay shirkadda isku socodka dadkii alaabaha ee Sanbeder haddaba waxay noo soo hadhay laba su'aalood oo ay ka soo jawaabi doonaan dadka nagu xidhan baraha bulshada sida TikTok, Facebook iyo YouTube su'aasha koowaad waxay ku leedahay waxaad soo sheegtaa ninkii sameeyay calanka jamhuuriyadda Soomaaliland hadda halka idinku celi waa ninkii sameeyay calanka jamhuuriyadda Soomaaliland ee maaha ninkii sameeyay heesta calanka laftigiisa ninkii sameeyay magaciisa soo sheegaysa dagaalkii Iran iyo Iraq imisa sana ayuu socday su'aasha labaadna waa su'aashaasi waxaanad ku soo sheegaysaan barta commentiga hana ka iloobina videogan like garaysaan share-tana aad raacisaan barnaamijku waxa idin la socodsiinay maanta anigoo ah Shucayb Maxamed Kaahin sida caadiyan kana waxa inoo daadiyay Ibrahim Cabdullaahi Ibrahim Suufi waa farsamadii iyo soo saaridii Siraaj Cabdi Xasan intaanu mar dambe ku kulmi doono waxaanu nilaana annaga shirkadda Sanbederba sida iyo kulanti dambe oo xiiso